maanta waxaan ka hadlaynaa application-ka wax lagu edit-gareeyo ee loogu isticmaalka badnaa sanadadii la soo dhaafay ee CapCut. Waxaan ka hadlaynaa tooliska CapCut iyo mid walbaba iyo wuxuu u qabto iyo shaqadiisa. haddii aad tahay qof jecel inuu barto application-ka CapCut, waxa muuqaalkii aad ku baran lahayd tooliska application CapCut waa muuqaalkan. Fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay qof ku cusub channelkeena Qabiir Tech inaad channelka subscribe inoo saarto, muuqaalkan like inoo saarto si aan u helno saaxiib wanaagsan sida adigoo kale. Muuqaalkeena maanta ay ku saabsan yahay, haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta. marka hore marka aad CapCut gudaha u soo gasho sidan ayaad marka hore arkaysaa qaybtan new project waa markii aad rabto inaad new project ama sawir ama muuqaal aad rabto inaad edit gareyso qaybtan ayaad ugu darsanaysaa new project video ama photo midka aad rabto ayaad imaanaysaa video sidan camal aad u select gareysanaysaa aad ayaysaa ka bacdi aad markii aad dhahdo oo aad muuqaal ku soo darsato tools fara badan ayaa hoos kooda soo muuqan doona. Toolskan ayaan maanta ka hadlaynaa. midka koobaad waa edit-ku waxyaabo badan ay ku sii hoos jiro. midka labaad waa audio, midka saddexaad waa text, midka afraad waa overlay, midka shanaad waa effect. hadda waxaanu ka hadlaynaa midka koobaad oo edit-ka markaad gudaha u soo gasho qaybta koobaad waa split, waa jarjaridda. horta edit-ku wuxuu ka kooban yahay wuu fara badan yahay qaybo fara badan ay ku sii hoos jiro enhance voice, isolate, retouch, waxyaabo badan ay ku sii hoos jiro adii halkan laguma soo koobi karo. marka hal ayaan ugu hadlaynaa. haddii aad weli channelka subscribe inoo saarin waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe inoo saarto. inta badan dadka muuqaalada daawado YouTube-kayga sare subscribe uma saarno, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe inoo saarto. subscribe waa muhiim. like haddii aad noo saartana waxay noo noqonaysaa dhiirigelin. waad mahadsantahay haddii aad intaa noo samaysay. midka koowaad ayaan ka hadlaynaa oo ah split waa jarjaridda muuqaalka. marka aad rabto inaad qayb ka dhigto split ayaad isticmaalaysaa. split waa muhiim marka aad rabto inaad muuqaalka jarjarto kale ayuu muhiim yahay. speed waa marka aad rabto inaad slow motion waxyaabaas ku darsato. slow motion kuna waa aragtay inta badan TikTok aad ku aragteen. animation waa animation-ka. style waa style-ka oo inta badan TikTokerada ayaa isticmaala oo qofka markuu TikToker yahay waxaa arkaysaa inuu inta badan isticmaalayo style. animation ayaan ka hadlayn hadda, balse style-ku asagana waa inta badan TikTokerada waxyaabaha noocaas ayaa isticmaalo. TikTokerada waxyaabahaas ayaa isticmaalo. delete waa marka aad rabto inaad muuqaalkaaga delete gareyso. enhance voice waa marka aad rabto muuqaalkaaga inaad sidii microphone-kii oo kale aad ka dhigto. isolate voice waa marka aad rabto inaad muuqaalkaaga ka jarto waxyaabahaas. enhance voice waa marka aad rabto inaad ka dhigto. isolate waa sidoo kale. retouch waa marka dumarka inta badan adeegsado. camera tracking waa AI movement waxyaabahaas marka aad ka rabto. volume waa codka haddii aad rabto inaad dheereyso. qaybtan waa jarjaridda. transform qaybtan waa waxa aad rabto inaad ka dhigato. adjust waa qaybta adjust-ga oo muuqaal quality waxyaabahaas quality video filter waxaan wada garanaynaa. remove bg waa background-ga marka aad ka jarayso. overlay waa overlay-da inaad ku soo darsato wax marka aad rabto. basic waa dhaqdhaqaajinta muuqaalka. mask qaybtan ay ku qoran tahay waa circle mirror waxyaabahaas marka aad rabto inaad ka dhigto ayaad mask isticmaalaysaa. duplicate waa marka aad rabto inaad badiso muuqaalkaaga laba ka dhigto ama aad copy gareyso. replace waa muuqaalkaaga marka aad rabto muuqaalka inaad ku bedelato. extract audio, motion blur, reduce noise waa qaylada marka aad rabto. auto effect, freeze, reverse waa ku celcelinta. opacity waa marka muuqaalka aad rabto inaad ka dhigato iftiin dheer ama inaad gaabiso iftiinkiisa ayaad opacity isticmaalaysaa. qaybta koowaad halkaas ayaan kusoo gudubnay. qaybta labaad audio, sounds, copyright, sound effects, extract, record video marka aad rabto inaad wax dubto. sound effects waa iyadana waa marka aad rabto inaad sound effect ka hesho. qaybtan kale waa text qoraaladii waxyaabahaas aad isticmaalaysaa. halkan waa overlay oo marka aad rabto inaad muuqaal ku soo darsato ayaad isticmaalaysaa. qaybtan waa effects oo effecti ayaad ka helaysaa. effectiyaan caadi ahayn muuqaalkaaga waxa aad rabto qaybtan extract ratio ka dhiganaysaa. filters waan wada garanaynaa. adjust iyadana waa muuqaalka marka aad rabto inaad iftiin ku dartay waxyaabo